السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج كلام كي سوغان توسط سجل سعتان زدان كجنة استوديو هذا حمل قالة نيروبي ما أنت برنامج كوحد كرب بجد أنتان لكن كأبوانك يولي بسوغان تان أو دور وتركون بس أمر كهرب برنامج كمرتدي برنامج كان سودوي كسر دوا عبد البرنامج ودوا حمد لميدا صح عبد الولي بالمجا عاد وسدحنا ذاك بالله بس ما كهرب بسم الله أهلا وسهلا على محمد مجاعيقو عبد الولي يوسف السحاق waxaan ku magac dheerahay intii dambeeto Cabdiweli Soomaali marka aad baan idinku mahadcelinayaa idinka iyo TV-ga iyo dhalinyarta asxaabta baad idinku mahadcelinayaa Cabdiweli waxaan ku magac weynahay ama inta badan ugu yeeraa Cabdiweli Soomaali magac Cabdiweli Soomaali muxuu kugu baxay leedahay magaca Cabdiweli Soomaali waxaan u maleynayaa waqtiyadii dambeeto anigu inta badan waxaan ku noolaa ama la noolaa nolol ah fanka iyo suugaanta waliba inta aniga tabartaydu ay ahayd maadaama aan la noolaa aadna waxaan u xiisayn jiray noloshii muddo badan inkastoo dhulkayga hooyo kasoo maqnaa dadka aan aad waqtiga dheer ku qaatay aan ahayn iyo dhaqankaygii haddana waxaan jeclaan jiray aan la noolaado bulsho inta badan dhaqanka haysata aad baan u jeclaan jiray ciyaaraha Soomaalida oo noocyadeeda kala duwan haday dhaanta noqotay kuwa kala noqdaanba ciyaarahaas aan aad u jeclaan jiray dib dambe qaabkii suugaanta markaan kusoo biiray magacaas uu iga raacay waqtiyadii ugu dambeeyay meelahaas iga raacay iyo bulshada dhexdeeda marka taas ayaa ugu wacan in lagu yeero Cabdiweli Soomaali naam Cabdiweli marka fiirisid hawshan aad ku jirtay hal awarnimadu ma ahan wax sahlan waxa laga yaabaa in u baahan tahay jurdi iyo markaas iyo caqabado aad u fara badan balse marka fiirisid hal awarku sidoo ku imaadaas leedahay sidoo ugu dhashaa qofka bini'aadamka horta waa sax oo juhdi badan buu galayaa qofku waxa walba hawl baa laga maraa oo dadaal baa la galiyaa laakiin qaabka uu ku dhashaa waxay tahay marka horeeto suugaanto dhan baa waxay tahay hibo ama hiddo wax la yiraahdo hibo iyo hibo waxa la dhahaa deeqda Ilaahay bixiyo waa talentiga Ilaahay ku siiyo ee qofkan ku goonida uga dhigay dadka kale uga duway hiddana waxa la dhahaa ku dayasho ama uu ka firraacid ka firsi dhanka waaridka ah hadii aabaha ama awowga ama adeeryaasha ama abtiyaasha dadkaas u soo jiilkaas isu dambeeyay ay suugaantu soo gashayna waa la kara qofkan hiba u keentay waxa uu keentay hidda raac weeye waxa soo raaca oo saddexaad hab farshaxan la yiraahdo oo qofku inuu inta meel area la isku aadaadinayo uu arko uu barto ila wax waa tacliin waa 10 uu inta barto uu ka barto laakiin midda ugu muhiimsan saddexdaas waa midda hibada oo Ilaahay deeqda u bixiyo ما أقول ميمسان مركا أديتن أركرنا مركا أنتي هيدا هذا مسواتي والله كمان مرة صاحبك لبضة دمبا لكن هيدا هرتا مركا اللي ويشتغل أنا دتك والدك يقعدنا وياشي يابتياشي يضبنا عاصة بقى بيشتري حاجة سوغانتا استعمال تري وحا مركا ده هبنا إنا تهينا أنا بقرصنا وقتي أنا أيوصل بيرتي مع وقت عيمانها أنا نوين مقالة دي نشوفه aan jeclaado aan dhageysto aan ku xiraado laakiin waqtiga igu soo biirtay waa waqti aan xasuusan karo inta iyadu soo gashay wax aan iskuul aadin iskuuliga soo raacin ama aanan u soo marin qaab kaleeto waqti period gudahood aad xilli gudihiisa igu dhashay iyo hor socday bay noqotay hibaduna way ku jirtaa hadaan deeqa la haysanayn ma bas socotay masadaan maysan gaarteen sana minsanahay arinta in Cabdiweli marka fiirisid waxa jira gabay iyo maanso dadka qaar waxa laga yaabaa in isaga dhex qaldanto maanso maxaa waay gabay maxaa waay hal abuur maxaa waay sidaas ma jirtaa si lagu kala saari karo isla markaas lagu kala ogaa karo midba iyo mid ay tahay iyo mid meesha hoos tagto ay kullu hoos wada imaadaan fanka iyo suugaanta waa jirtaa horta qaab baa loo kala saaraa waxaan u maleynayaa mid walba waxay leedahay chapter gooni ah iyo qaab gooni ah markii la yiraahdo suugaan waxa kamid ah heesta waxa kamid ah dhaantada waxa kamid ah gabayga maansada hal xaraalaha waxa la geegaarka baraamburka waxaas oo idil waa suugaan bay maanayaan marka gabaygu waa madaxda suugaanta waa mucdanka meesha ugu muhiimsan suugaan qof ku hadla qofka ugu muhiimsan waa qofka gabayga tiriya ee gabayga curiya gabaygu iyo maansadu marka ay ku kala duwan yihiin wax la god gabayga god baa lagu cabiraa godku waxay tahay calaashan tirada tiru leeyahay
ama 2 ah ama 3 ah ama 4 ah baa gabaygu leeyahay. marka maansadu laakiin sugaan horta waxaysan ka maarmayn oo waxa koobaad aysan ka maarmayn waxa tahay inay qaafiyad yeelato صح wax la qaafiyad oo ah hal eray xarafka hesta bas baa maanta dhan lagu wada haya oo bulshada dhan looga qabtiri karaa baahideedii wixii dhibaatadii markaas laga cabanayay waxa shaqadii la rabay oo dhan hal eray baa lagu gudan karaa halkaas oo noqon karo a ama ba ama ta wuxuu rabaa ahaado qaafiyada bay leedahay. marka god baa lagu yaqaanaa aseedee gabayga. maansadu laakiin waa iska iyadoo inta badan suugaanteedu waa qaybta labaad ee gabayga soo raacday xagga suugaanta uga jirta chiefta la yiraahdaa. marka iyagu noocyadaasay kala leedahay maansadu iyo gabaygu kala duwan. alxamdulillah markaad fiirisid gabaygu ama hal abuurku maahan wax sahlan. taas sidee kugu suurta gashay inaad hore ugu socoto iyo inaad ka miro dhaliso dadaalkan asiga waxay iigu 2 sabab baa ii kaliftay inaan hore u socdo aan ka cimban calaashan aan ka danqan meeshii hadafkaygu ahaa. tan koobaad waxay tahay horta waa tan hore kugu sheego waxaan ku dhahay waxaan waa hiba la bixiyo oo wuxuu deeq alle haday tahay ayadaa ku dhahaysa hadal sax. dadku isku fikir ma ahan. ninka suugaanyahanka markuu maanta kula socdo ruux dhibaataysan wadada marahayo waxa laga yaabaa inaad u arkin laakiin isagu arkayo cadaalad darro wuxuu arkayaa sidii ay boos cadaalad inta laga tahay cadaalad darro dhaqankeeda laga dhaqan yeeshay buu arkayaa. wuxuu kaloo arkayaa wax aad u malaynaysa adiga markaas hadaad fiirisid kula fiican laakiin aan isaga la fiicnay. hadda dadkeenaan badan oo dhan waxaad arkaysaa heesaha la dhageysanayo haddan maanta soo baxa inay la fiican yihiin dadka oo iska wataan. midaas waxay keenaysaa inuusan qofku suugaanyahanka uu kala ogaado waxaanu inay yihiin wax xun iyo inay miro fiican yihiin. taas horta waa midda koobaad. tan labaad baa waxay tahay dee dhibaatada ugu kaliftay inaan suugaan curiyo baanan weli arag guusheedii. marka labadaas ay ugu kaliftay suugaan aanan ka joogsan oo waqtiba waqti ay ii dhiibtay. markaad fiirisid qofka abwaanka ah ama hal abuuraha wuxuu leeyahay markaas qof macallin ah ama qof uu ku daydo. adiga ma jirtaa qof aad ku dayto ama qof aad maanta dheeleed oo macallinkayga wax uu ka faa'iidaa xagga suugaanta aad u weyn. abwaano badan baa jira oo dhanka suugaanta anigu aan uga daydo ma gaarahaya laakiin ragga nool maanta inta markaan aan soo maro maxamed ibraahim warsame xadraawi bulshada Soomaaliyeed bay u taqaanaa. in la yiraahdo xasan daahir weersane oo ku sugan magaalada Hargeysa. cabdullaahi xasan ganay baa jira asaguna waa nin aad qaali ugu ah ay tahay asaguna oo taqaan abwaanka dhalaata xasan ganay. marka maxamed xaashi dhamac gaariya Allah naxariisto uu dhintay. way jiraan raggii adugu mar walba suugaantii horta markii hore suugaantii soo bilaabayba aan salka ii noqotay oo dhageysigeeda iyo ku xiraanshadeedu dhiirigeliyeen baa waxay ugu ahayd suugaantii la oran jiray Siinley sax ee soo baxday dhowr iyo 72 aqoon iyo afgarad bay ka bilaabatay dugsigii la foole. maxamed ibraahim warsame bilaabay waa tii heesii noocaas ah. cabdiqays baa ku jiray gaariya ku jiray dadka noocaas oo marka suugaanta xilliga waqtigaas ku leh intaas miisaanka noocaas ku leh baan anagu horta ku daydaa ma gaarayo laakiin anu marka dadkaas baan macallin hadda ka dhigtaa hadda haddii maanta erey iga qaldamo walow ay yar tahay inaad qof heshid aad ku saxa adiga haddana ula noqotaa ayagii baan dib ugu noqdaa casharadoodii. marka waa caqabado badan tahay sidaan filayo in qofku uu wax uriyo ama uu qofku maadaama ay waxaan yihiin hawl aad u culus oo u haysta Soomaalida oo dhan doonaysa isla markaasna wax uga bedesho ummadda. waxa la caqabadaha ugu weyn oo maanta Korea la addeed maanta iyo horyaalin waxa ka taas kartaa ma yara. Soomaalida idil baa waxa iska noqotay wax la yiraahdo shaka waxa ku dhacda moogtahay de niyada qiyaaliga maarta niyada qiyaaliga waxay ku tusinaysaa program aan jirin. programkaas dib loo raaco wax jira ma. Soomaalida marka waxa u baahan dad qof Soomaali dhagsanay timaadada tira u baahan buu ku leeyahay. sax marka kama duuniyo anigu yo baahida horta iska jirtaa baahida dadka Soomaalida haysata baa haysata ha ugu horeyso aqoon la'aanta afka Soomaaliga aan leeyahay. sababta anigu aqoonta maadiga markii la yiraahdo xagga afka Soomaaliga luqadda afka Soomaaliga markii ugu horeysay waxa ay bilowday hooyada dhashay aniga macallin ahayd
baa barto laakiin sida goonigaayo laga yaabo dadku waxay isdhahayeen maxay tahay qaabka u barto qaabka iga barto waxay ahayd sabta macalinku wuxuu baro anoo guriga joogo 4 sano markaan jiray alphabetska Soomaaliga waan aqaana qaabka xarfaha loo qorana waan dareemayo waan wada fahansanahay qaabka noocaas marka anigu afkayga hooyo ku soo bilaabo waxaan ku soo aaday oo kale waqtigayga ah xilliga burburka dalka Soomaaliya bay noqotay jiilkeeni anigu aan ku soo aaday waxa ii sii dheeraatay inaan wadanka dibadiisa aado oo meel aan buug ka helayn oo aan macallin ka helayn oo aqoon-yahan aan ka helayn saddexaas aladood baan banaanka hadana kula soo kulmay marka baahi aad u fara badan oo furaanta aan ragga kala haysan markaan fiiriyo suugaantooda quruxdooda halaha la yaqil kaambi markaan fiiriyo xagga afka say ugu xeel dheerihiin baan raggaas kaama fiicnaadeen afka hooyay bartay barashada afka hooyo waxa ay ka iskeersay marka caqabado iska jiraan laakiin waa hada marba halba si loola challenge garay arrinta Abdul markaad fiirisid dhulkii hooyo Soomaaliya oo ah hooyadii dhaqanka ama wadankii dhaqanka maadaama anagu Soomaalina waxaan filayaa in marro ugu dambeysay aan ilaahay haatan si kale oo dhiga xataa ay ugu dambeysay xataa mar hore markaad fiirisid dadka Soomaalida waxay aaminsan yihiin qofka markaas ku dhex jiro dhaqanka iyo waxaas ayaa markaas wax hela fursadaha ugu badan sida markaas ugu guul dhaliyo ama uga miro dhaliyo naadi hawshan marka taas sida ku sameys maadaama aad darsha shay joogtay dhaqanka dadkii aan ku dhex jirin saameyn inta laga ku yeelatay markaad fiirisid horta way jirtay oo ku saameynaysa sababtu tahay hadda maanta dan halkan ka tagnaa library book Soomaali ku qorayaa ma arkayno sax dictionary waxa jira afka Soomaaliga qaamuus la yiraahdo afka Soomaaliga ku qoraa inta dad ka raaysid ma helaysid sax saameyn aad fara badan runtii dareen aad weyn bay ugu dhalisay laakiin challenge nolosha guusheeda dhan baa waxay tahay qaabka aad caqabada ula challenge garaysid sax marka inta badan anigu waxaan isku dhaafiyaa waqtigayga anoon raadin inta aan marka maskaxdayda hayso inta maskaxdayda maanta ay suubin karto baan marka koobaad hadafka saara goolska saara dadkan dambana waxaan adeegsadaa habka internetka maanta xogaa social media aan baqaab qaldan u isticmaalnay ba xogaa dadaan aad loogu hormaray marka waa qaab noocaas ah inaan u raajo waa laga yaabaa laakiin ma lahan way iska jirtaa challenge noocaas oo caqabada noocaas oo saameyn barabadan bay u leedahay marka si guud u fiiriso dadka ay ku dhashay baadiyaha ama dhulka reemiga dadka reemiga iyo dadka reer magaalka markaad fiirisid ay ku kala duwan xagga suugaanta taas maxaa loo sabayn karaa markaad fiirisid waxaa loo sabayn karaa suugaanta markeedii hore taba asalkeedu wuxuu ahaa miyi sax suugaanta kaliya ma ahan annaga dhan oo Soomaalida qof Soomaaliya dad maanta inta u timaadid aad suuraysitiin xagga miyiga sheekada uga sheekaysan annaga daab ku leeyahay midaan ma dhadhamaysan mid kale ma sheeg sax waxa keenaysa inaan annagu waxaan ahayn aan ka faarno waxaad fiirisaa qof Soomaaliya maanta inta u yeertay waxaad tiraahdaa actorso asaga iyo aabiis iyo awowgiis hadday magaalo ku dhasheen awowgiisa labaad miyi ku dhashay marka nolosha dhan waxaad fiirisaaba dadkeegu miyi bay ka yimaadeen suugaantu miyi bay ka timid sax waxaad arkaysaa oo dhan suugaan baad aragtaa marka la yiraahdo qof hal la amaano oo gabar hal la amaano ama deegaana suugaan baa la qori hadii la yiraahdo magaalo waxaad ka soo qaadan kartaa caqabada ka jirta dhibaato dhacday inaad tiraahdo dhibaatada noocan ah magaalada ka jirta ma ahane wax aad ku dayatid oo gadaal ka dhigtid oo background ah magaalada ka heli maysid saas awgeed badaxa ka suugaanteeni anaguba inaan wada socno dad miyi ka yimid aan magaalada aan ku noolaana laakiin suugaantu waa miyiga bay ka timid markii hore aqoonta miyiga iyo aqoonta magaalada way kala duwan yihiin qofka miyiga joogayo uu aad u caafimaad badan yahay wuxuu kala haystaa saxa aad u caafimaad badan malaha waxaan isqabsigan iyo population kan iyo dagaalkan faraha badan iyo waxaas inuu san rag baa laga yaabaa saas awgeed dadka miyiga iyo dadka magaalada xataa way iska jecel yihiin dadka kale runta aad bay iska jecel yihiin ka suugaantu dhanka miyiga ka timid saas awgeed ba keenaysa in afka xagga ay ugu aqoon bataan dadka miyiga ay u helaan waranta inta markaan kala soo gudubno hordhaci bal maanta maansada ugu horeysa oo aad nala wadaagi lahayd tay noqoladaas la maansada ugu horeysa soo qaban lahaa waxaan soo qaban lahaa maansa la yiraahdo quman kala u macnayno quman waxay noqon kartaa markaad fiirisid quman waa iska jirtaa inta badan waa la weydiiyaa maansadaas ereyga magac ahaanta
فأبدأتكم مال كلا أفسرتان arrinta قمن waxaan ka hadlayay noloshii soo jirtay ha ahaato dhankii ee qumanad markaas noloshii alashan aan dadkeegu caqabada maanta ay ku nool yihiin dadkii hore waxa ahaayeen iyo qaabka loola challenge gareyn karo noloshan waxaan uga hadlayay waa maansa wadani ah marka qumam waxay soo baxday adiga 2016 bishii labaad baan u malaynayaa meelahaas bay soo baxday idan marka abdulay marka fiirsid maansadan quman bal maxay ku timaas leedahay maxaa sababa markaas inay yimaado quman horta waxa ku timid book aan qorayni baa jiray anagoo dhowr ah abwaan la yiraahdo Said Umar oo ku magac dheer laashin yare baa buugga iska lahaa buug afka Soomaaliga buu ahaa buuggi markaan qoraynay suugaan markaan waxaan bilaabay la yiraahdo Duflaal mar habaabis Duflaal oo ku timid dawladdii dhisnayd waqtigaas 2014 bay qaabkaas soo bilowday albumkaas Duflaal la yiraahdo dawladda dhisnayd oo baarlamaanka inta soo fariistaan meesha kuraas isla dhacayeen oo islaynayeen dawladdii aad moodid shakhsiyaadka personal business ka ahayd bay ka hadlaysay suugaantaas bay ka soo qayb gashay marka quman suugaantaas horeysay buuggaas marka qayb ka mid ah rabeen suugaanta lagu daro buugga lagu suugaantaas qayb ka mid ah buugga lagu soo daro sidaas awgeed baadana waxa ku dhaafta quman marka waxa ku dhaafta waa qaab wadanimo maadaama buuggii u socday qoraalkii u socday baa rabay inaan anagu marka albumkii laftirkiisii aan rabnay inaan wadnana aanan afxirin aan soo xirmay bay quman soo gashay meesha marka wuxuu ku saabsanaa leedahay dhacdadan bulshada ka dhacda oo sidaad inta badan maasada ka dhaxdheeyeen dintid nolosha waxaan qiyaas fara badan aniga laftirkayga nolol aan soo arkay qaadka oo kaleeto wuxuu kaloo ay taabanaysa meelaha ay taabanaysa waxa kamid ah dadkeenan maanta is haysanaya for example waxaad maqlaysaa maanta hebel wuxuu ahaan jiray waagi taariikhda marka laga sheekeynayo dadkeena halgabayaasha buugga ku qoran ee buugaagta noogu qoran ee dhalinteena looga sheekeeyo iyo dadka maanta jooga differentiga u dhaxeeya dadka maanta jooga waxay ka sheekeynayaan nolol hadaad aragtid qofkan aan qiyaas lahayn buug u gali karin waa khiyaali ah buug uma gali karto wax diiwaan oo ilmihii la bari karo ma ka tagaya noloshaas ay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay maamulada dadka iska leynahaya oo ururada isku sheegaya iyaguna masaakiintii leynahaya oo dadkii maatada hala leynahayo adigu midnimada iyo marka ugu dambeysay duca kusoo gabagabeeyay marka ereyada ugu horeeya oo maanta maansadan waxaan jeclaan lahaa inaad daawadaasha la wadaagto isla markaasina aad ku dhufato qackaas labada ama saddexda ugu horeeyda xataa maansadan quman waxay tiri qashqashaadii dunida nafsi qaawan baa yimid qoomamaynta ciilkana naf walbaaba qaybteed qiiro iyo xanuun bay qalbigeeda gelisay waa su'aala qaran yaho wax qabad aan qalqiil gelin qaangaar ma noqon karo yaa inoo qorsheeyo qaabkaa inoo furay qaninimo allaalehe qoomka maanta jooga qisadiisu waa maxay sheekeen qaad ku soo maray waa aniga ka sheekeyna meesha ku leh sheekeen qaad ku soo maray ninay gaajo awgeed qabsinada adkaadeen qoysan karin qalaylkii markuu qaadka daaquu qiso iyo war sheega hadal loo qoslaayo qaraxi ciyaarmuna ragga qaadka cuna hadday maanta ku sheekeeyaan ma waa la qoslayaa maslaxa waa la daadanaya waa qiyaari wuxuu ka hadlay markii qaad dhamaadee biilku qaylo keeno qabar uu ku soo dimo ayuu carab qushuuca markaas waa carab la qushuuca reerkii qorxtii ilmihii markuu biilka cuno leeyahay waraaw biilka uu yira waa cuna bay hada xaalad ku xumaanaysaa yaa laytan ibtagan yahay sheekaan qoloba noo dirin baan qaadaa dhigaynaa haddii qaarba qaar kale qalad uu ku sheegaa xidigtii qabyada ahayd ninba qowlad suubsado keenii qalloocani qiimihiisu muxuu noqon inta hadalku qiimiya leeyahay qiyaas wacan dadku wada qirahayaan qowlkii ilaahay waa wax lagu qancayo nafta qiiro gelin kara haddii uu qalqiil iyo taga murug qaraar badan waa inaan ka qanacnaa ha yeeshee qorshaha qaran Soomaaliya maqiilba ha yeeshee qorshaha qaran Soomaaliya maqiilba inaan diinta qarinaa xaga qalad ku sheegnaa dadka qoloqolaynaa qabiil beena sheegnaa xisbiyadan qaraarkiiyo wada qoloqolayntana Soomaaliya qalibayaan kuwa dhiigga qubaya miyaan xarig ku qabanayn miyaan la qabanayn ayagoo ah indho u jeedan waataan dadkii maatada hala leynaya marka wuxuu yidhi qarowgii barbaa tegey quudkii barbaa qaday qarankii barbaa dhumay qarankii barbaa dhumay qaniyow ilaahow qulubteena noo qo waa dee meesha ugu dambeysa kusoo gabagabeyn qaniyow ilaahow qulubteena noo qo waxaan aayad lagu qoray amaan xadiiska lagu qoray qanaciya wanaag mala kuu qushoonaya boo qaraceebaheena hanuunkaaga nagu qabo
laakiin macna markii la fiirsho area ahaan ha gaabnaato laakiin markii la fiirsho macna ahaan inta aad bay u dheertahay maanta waayo waxay taabanaysa dhowr qodob waxaa ku jira qaybtii qaadka waad ka soo hadashay iyo markuu isku dayay inuu wixii qof qaadka cunaa inta badan markaad fiirisad waa qof qiim badan waxay ahayd markaad fiirisay maalin maalmaha kamid aan soo maro meel rag ay fadhiyaan xayno la isugu yimid ayaa nimid badi ragga waan isnaqan rag asxaabtaa bay ahayn geed baan soo fariistay geed bay fadhiyaan nimanku waan ugu imid niman dhalinyaro ah joogtay dadna ragga baa qayilahay midkii soo xigay xagga soo xigay inaan isnaqaano ahaa baan waree hebel wuu maqli way dadna waa soo jeedin inta shaatiga soo qabtay ninkii uu booda marka maxaa kugu dhacay baan yiri aniga ma taqaanaa bi waxaan ugu soo bisay aniga waan xaday ninka si qof hurday hurday ka baraarugo kale nin koran noqo waxaana maxaa dhacay wuxuu yiri markaas ayada uu qayilay wuxuu yiri anoo ka tagay bi Afrika inta ka tagay qaaradahaas kala galay ba dib ii soo celisay ma taqaanaa waxaad ii geysatay soo celiso taagan yahay ha alsha waqiyaaska meeshaas uu ka qaadanahay albaaba iyo nolol been qiyaali oo dhisanaya halkaas ayada la shirkeedu waxyaalahaas intaas un baa inta touch ball kaayda aan ka soo qabanayo markaas aan taabanaysay baan kala hadlay runta ma sadana markaad fiirsid ama erayadani waa erayo runtii aad u weyn markaas qof saameyn ku yeelan karo qof ama saameyn weyn buu ku yeelan karo qof walba oo wax garashay suugaanto dhan baa waxay tahay waxa loo suubiyaa malayacni inta badan ma suugaan waxa loo suubiyaa waa in bulshada ay wax ka taabato bulshada wax dareensiiso marka nolosha qaabka noocaas ay suugaanto dhan ku koobnaa in wax taabato qiyaaska loo suubiyaa marka hore markaas waxa leedahay loo baahnaa markaas in dadka kaciso dadka qaar waxaa jiro Soomaalida ay yiraahdeen dadka magaalada ku dhashay ama magaalada ku barbaaray ama miyiga goorta ugu dambeeyay markii maansooyinka akhrinayaan waxa muddo inay fahmeen erayada hadii noqon lahayd hadii noqon lahayd maxaa la qaabka u dhacayso kuwaas amal maxaa ku samaysan si ay ugu adeegsataan qaab maasan horta suugaanta baa qofka haba meel baa loo soo maraa qofka bilaadanka shan meelood baa wax ku soo galaan adigan qofkan dareenka qaabka wax kugu soo galaan oo dhan baa waxay tahay shan waxyaalo inaad wax arag ku aragto sax aragga oo wixii aragto inaad uriso inaad dhadhamiso inaad taabato inaad maqasho shantaas wax kugu soo gali karaa sax shantaas wax ka duwan oo qofka bilaadanka wax ka soo gali kara ma sheegan qofka ilaahay talent gooni oo kala tasiya laakiin anagu inta aan naqaano dadka mucdamka bilaadanka wax ku soo maraan aniga inta ila midka qaabkaas ay nolosha dadku bay ku soo galaan sax dadna suugaanta markaad suubinaysay waa inaad qofka aragga u martid si aad suugaanta uga dhadhas qalbigiisa waa inaad aragga u martaa oo tiraahdaa waxaan aad suubinayso waxaas sax hadduu indhool yahay waa inaad maqalka u martaa sax maqalka u sheegtaa oo dhanka maqalka ka soo aarito tiraahday saas iyo saas jirta caqabada noocaas marka suugaantu iska jira dadka magaalada waxa keenaya ayagoo la barin afka Soomaaliga oo aad xagga tacliinta aysan ka haysan awood tan labaad oo u keenaysa waxay tahay anaga dhan baa iska dhadhacay nolol la dhalanteed sax ma jirada nolosha qiyaaliga waxyaalahan ku dhismirana dalkeena ku dhismiraya kamid ah nolosha dhalanteed qaabka noocaas ay keenay qiyaaskaas ay keenay markaad fiirisid dhaantadan ma jiraan dad si gooniya markaas u taabatay ama markaas si gooni uga soo jawaabay markay arkeen ama markaas kuwa way arag ka qaatay ama markaas kaga daayay nolosha qiyaaligeeda ku jiraan sida dadka qaadka cuno oo kale in badan bay dhacday in dad noocaas oo isticmaalay u jiraan oo ka hadlay caqabadaha noocaas way taabto dad badan oo kuwaan toobay way jiraan waana run ahaantii haba ka mid ahaato qaabka aan usoo gudbinay haba yaraadeena laakiin dad badan bay taabato in badan baa ku intifaacayo wax ku qabsaday waa tahay taas markaan iska gudubno tan labaad ee maanta jeclaaleed in wax nooga taabato iyo magaceeda dhalinyaro aan lahaa maansada aan rabaa inaan soo qaato waana maansooyinkaygii maansada ugu horreysay been masalaya ee soo baxa intii miisaska hoostooda ku jirtay tan ugu muhiimsan markaas maadaama Soomaalida la sheegay in boqolkiiba waana maansooyinkayga maansada aan ugu jeclahay dadkuna ay ugu jecel yihiin baan u malaynayaa aad baad dhalinyarta ii weydiisay inta badan leeba codsada meel haddaan tago waxaa la yidhahdaa cabdiweli dhalinyaro baan kaa codsanaynaa maalmaha ka mid ah cabdiweli si gooni waxaad moodaa in Soomaalida la sheegay in boqolkiiba 75 ay yihiin dhalinyaro mansadan dhalinyaro si gooni u taabanaysa marka dhalinyaro qaabka ku timi waxa ahayd markii horeeto niman asxaab aan dhalinyaro ah oo urur dhalinyaro Soomaaliyeed ah baa xisubinayaan xaflad
xafladii markii la dhigay rabay waxay dhani waxaan barnaamijka u socdo in aan ka soo qayb galno oon suubinada aan marti sharaf marka riwaayada inaad noo jishiin dad barnaamij program noo soo diyaarin kartiin riwaayad baan diyaarinay oo riwaayadii maalmo ay markii diyaarinteeda soo dhawaato xafladii ay 2 maalin ka dhiman tahay baan waxaan bilownay inaan dhalinyarta hal maalin ka dhiman tahay oo bariyo kale ka dhiman tahay baacaw kale tan loo yimid bacaleeni xafladii way weynaatay oo rag baarlamaankii Soomaaliya ku jira oo dawladii waagaas dhisnayd ku jira baa imaan doona oo ka qayb ah marka waqtiga noo suurtagelayna inaan bedelnaa rabnaa صح حاد اسبدل وكلاتهم محل نوغو بدلي كرتين بوسك رواية صح وحن روكسو فكرين هذا قياس كمركز نسوغانتا إن يرن قرون وهذا رتر وهذا مركز لتجرها لغو كابا ما هاني مالهين بروفيشنال هذو ليارو سوغان كسوبيو وانكسو تغني كبار مستحل يراهدو أو مركز لتكر وادنا لتجرها كاميدا واحد يقولون ما دلين يردو حكا تيراه أو حوغا حلابور كان اسكتهم مين ايضا لفتر كبار سوغانتا كوحول لراه واحد ترماد لأن يرد وحكي تيرين حافظة دي ما انتجي لأن يرى سلاس كتمت والله ما نكان قري حتى ما فرش حماي حلو المسكحة هذا قصور علي وما قري ساعدت كوبن جذوه حفلة دي أنا واقعي بقلي ما إيدي تنقرنا دبدا ما هجا كده حرينا وحن مرينا سيدي مركب هرب على السوق كأدي تصنيد مركب أساسا لأن يرى كتمت markii ma toqoraalka maansooyinka ama gabayada ma waxa loo qoraa sida caadiga ah hadalada aan qorno balse way ka duwan yihiin sidaas ma fiiris way ka duwan yihiin hadalka waxaad qori kartaa oo inta maskaxda markaas ku jirta sax oo ah ina topics meeshaas ku wada qortid topics inaad meeshaas ku wada qortid gabigeedan sax ba lagu suubiyaa xagga qoraalka sax laakiin maansadu waa waxa maskaxda markaas ku soo dhacay miraad xulaysa ilan qaafiyad baa joogtay iska cantara baqash wax suubin mayso dadkii wax indhaha ka tuuraya dhihi maysid waa inaad xushaas suugaan dadka ka gadmaysa sax oo dadka wax ugu sheegaysa marka way ka duwan tahay waxa laga yaabaa xataa maansooyinka qayb kamid ah inaad hadba page oo meel kaaga soo galo inuu hadba page kugu soo dhaco waqti kadib aad page ku dartid ama dhowr page ku soo dhaco ilaa hadalka xamalada way waxa la leeyahay si guud marka aad bilaabaysid dhexdeeda ma taqaan dhamaadkeeda marka markay gaartay soo furfuraysa waa tahay maansadan ugu horeysa bal maansadan labaad aan ilaahay dhalinyaro sidee u dhacdaa sidee dhalinyaro waxay tiri anigoon dharaarahan maansooyin aan dhugan waxa ii dhawaaqo dacwadii ugu dhaartay dhalintii dalkayga ayagoo ka dhiidiyay dhacdo aan dhammaan oo duqaydii ku dhiirteen rabbaan kuugu dhaarshay waxa tahay abwaan dhaba dhambaalada jacaylka ee Soomaali dhaqankeed hadba buu ku soo dhigay maanta waa dhankayga dhinac kale adoon dhugan waxa dhimirka naga galay maankeena dhaawacay dhaqankeena aan galin diintu aysan noo dhigin adigoon ka dhowrsanin murtimaad ka dhiibatay dhalin baa ku dhowriyay إلا أن اليرد إله اللي تبغى تقياس كم مركي قبل أي تريمان اللي راح كتير هالكاس كسوق تبغى هذا الكينا دوفيا واحد دح جيس شعب كدكتورها لفته واحد وشرته ما ضحدي دلان كان ما كان ده هذي بيت كاس ليش يا حنون كله أنت جدال وديرتها جرنا يا دي لا أنا ما دتيسدم بألله دون تون جيسها لا دورة نين كداف كشعله ميركا ويودمين مسك هذا يدي من أنا قاعد أراه رق حطيه دحت جاي تهريب سود الدمية أنا كود دمية ده هالشيء كذا يدو دجاها جيدي ومال دي بدن الروح دحت جوجا هردنا عمود دجا دفتر قنطانية مدة دمية دونيجا وح أو كل دجاجا يا إجا دقات شرول كخويات ما ردتك أدوش شيء سود دوي اللي ردتك بقى الله هي مقتة ردتك بقى الله هي مقتة هنا ردتك على اليرد وقشكي أن سود دوي ما صد دندير هدانا هاي دلان كي دلك اللود سايين وإن عندي بعتذر دحضر السوق كحرتا رف كان دل الرجل التهريب كان دمانين قالت لنا عيوين بحبسية قالت لنا عيوين بحبسية دقيقة يسيه أو كوي ودارتي إن يدي من دليله هذا قاس مركز ما حد ماشي على شوكتي بان كلا هذا يزود أو كوي ودارتي إن يدي من دليلها مية ديك دقائق حريصة لا دقين مية دفت الدنيا ده دلال كراقين هيا شادب كاد عدل يرى ما دافنا هيا شادب كاد عدل يرى ما دافنا ذلك ما ودقاقنا وبيدا بيها من بيرمان كديجنا دمبلنا وبيدا بيها من بيرمان كديجنا غير وبيدا بيها من أنت كذا ذلك ما ودقاقنا وبيدا بيها من بيرمان كديجنا أنت كذا لو دعنا ديب كشالة تنقول دمبلنا عيد ذو ميد ذا دوقنا مرها كيت كديجنا سأنقاش نادي
ila qofka waxa nolol maalmeed ugu filan waxa uu asoo gacantiisa ku subsado dhulkeena maanta waxaad ka helaysaa nolol ayuu nooc ku noolaatay aad inta gacantaada ku subtay aad wax dawad kaaga imaadaad ka kartoontiin maan ku dhisano dee inta ka guurto Yurub aadadooda halkaas ayaad ka soo nolol ka raadisid wax naf kuguma jiraan kaaga muhiimsan reeramaan ku dhisana habla dhaban qurxoon loo Soomaali dhalado dhaqankeeni haysta faras doo dimeer iyo qalmo dhalay ka bixino dhalinyaro jaraysan toddobaad dhalaal dhaantada garaaqan taasi orinaysa maansada insha Allah marka waa dhaanta markaas gubaabinaysa dhalinyarada kana soo saaraysa qiyaaliga ee markaas aaminsan yihiin iyo waxa markaas dhabta ah wadankooda ku saabsan maansada ma xarto marka wax loo suubinahay waxay ahayd in aan dhalinyarta mar wacyi gelin uga dhignoon dhahno marka jooga dhulkii waxba ka ribkan waxaan iska dhaafo ka noqdo inaan kala hadalno waxaan kala hadli rabnay inaan dhiraahno wardi iska daayo dhankan kaleeto iyo islayntii cadawgan iyo waxaan iyo qabilaadkana waxba idin tari maayaan dhulkiina adinku wax ka soo saartay inaan wadanka dadkiisa wax ka soo saartay midda kaleeto madaxda dalka kamid ah in la hadlayo qofku ilaa waxa lagu doortay aduu dadka kala fiicnid moogtahay xilkan waxa lagu la gartay inaad tahay qof mas'uul ah marka habka mas'uuliyadnimo loo maalinayo ayaga lagu leeyahay markaas ayagina la hadlash si gooniya dhalinyaradan waa taabat maadaama maansada magaceeda u weyn oo xambaarsan dhalanta iyo wax laga doonayo markaad fiirisid maansadan si guud iyo si gaar ahaanba waxay taabanaysaa runtii arrin markaas xasaasi ah oo dhalinyarada ay muhiim u tahay ma jiraan mana soo wadaa ama ilaahdee maansooyin dhalinta ku saabsan base waxaa leedahay waa dhan kalaa ka xoog kama daalno dhalinyaradu mar walba waxaan u taaganahay waxay tahay dhalinyaro bage haddaad subsid dhalinyarada wax ka mid ah qayb ka mid aad ka hadlaysaa sax taas ayaa ugu weynaan leedahay marka cabdiweli marka dhalinta kama daalno soo saar weeye waxaan aan suubinayna waa hawl weyn oo hawl adag isla markaasna aad bulshada u haysaan marka bal dhaantaas haddaan kasoo gudubno maansadaas ilaahay haddaan kasoo gudubno maansada kale jeclaanayd maanta inaan daawadaasha iyo aniga iyo dhammaanba asxaabta ku daawanaysa alla wadaagto maansadayinkayga tii quman ahayd waa iyo dhalinyaro runtii aan filayo dad badan inay ku qoys qaadaan waxna ay kororso doonaan waa anaga dhan baa sidaas jecel marka maansada saddexaad aan kusoo barnaamij kusoo qaadan lahaa maansa aniga kole si gooniya ii taabata waa maanso sugaanteeda aan suubiyo dhan ugu jeclahay dadka qayb ka midana ay la qabaan walow ay dhalinyarta qayb ka mid oo aysan dareenkaas dareemin kuwan waxaan dhihi lahaa haddaan kula kaftamo kuwan ay aada u macaan wax ka macaanaya jirka runtii kuwan eryada markaad fiiriso waa eryo markaas aada u wanaagsan aada aniga kole igala macaanay tan oo markaad fiirisid humaaga ay wada aada bay igala macaanay anuu nolosha waxaan aada u jeclaa xoolo dhaqatada amba ku soo barbaaray waa sida qof walba oo Soomaaliya markaas uu jecel yahay dadna markaas noloshaas aad fiirisid waxay lahayd nolol aada u dalxiis qurux badan bay lahayd nolol aada u dalxiis qurux badan dhaqan bay lahayd wax soo jireen lahayd taariikhyan wax un weeyo dhamaanayn marna go-ay marka noloshaas wax la mid ah qayb ka mid ah baan markaas uga hadlayay waxyaalaha ka dhaca miyiga xagga shukaansiga ama waxaad taqaanaa asaawaha waxaa kaleeton ka hadlayay oo ka hadlaysay gabadhu waa wiil iyo gabar isjeclaaday uga hadlayay waa maanso dhanka jacaylka in gabdhuhu hadda darsan jooga magaalada waxyaalaha aysan fahmay wax ka mid dad maanso miyi oo jacayl tirsi ma fahmayaan waxay ku leeyihiin war waxa muusalamaan waacay tabaninka taas maxaa ugu wacan oo dhihi kara cabdiil markaad fiirsa waxaa keenaya qofku inuu fahankiisa qofku ila fahanku ku ekaada mogtaha fahankiisa inuu marka waa fahanka keenaya ninku waa hadduu hadda qof intuu ku yimaado luuqad aadan garanay kuga caayo adaranta ma adiga ma inuu ku amaanayo ku caayo kuma kala saaro inuu ku amaanayo laga yaabo laakiin adigu caybaad u fahmi kartaa marka sidaas oo kale ka mid tahay waa luuqad aysan fahmin waa lahjad ayagoo aysan markaas sheebka ugu jirin inay ka hadlaan marka qaybta jacaylkana dhabay ka taabanaysaa iyada dhan ba wax ku kooban tahayba nolosha jacaylka labada qof miyiga joogto isjeclaaday baa uga hadlayay sax maansadan wax saameyn ay adigu kugu yeelato ma jirtaa markaad fiirisid in badan sax inaan ka xusho sugaanteyda bay horta saameynta koobaad ugu yeelatay sax aan soo qaato jeebka kale ay ugu jirto waa aad ugu horeysa si gooniya aad u taageerto haddana dad waxaa jira aada u taageera oo anigu laftirkayga in badan iga codsada
aada loo jecel yahay marka dareenkeeda waa iska gooni oo iyada sida qaabka adiga ay dareenka ugu suubinayso iyo sida ay qof kale ugu suubinayso waa laga yaabaa inay kala duwan yihiin adigu aqoonta aad u tirsay baad haysay laakiin haddaba waxay kasii dhigan tahay aniga sida goonida ay igu jecesho noloshii calashan soo jireenkeeda anagu aan lahaan jirnay baan uga hadlayay waxay ku sugnayd oo dhanba qaabkay ahaydba baan uga soo hadlayay waxaa kaleeto oo qaadanaysa iyadana cimiladii wadankii noocaas dalxiiska hadda maanta diliga waxa lagu soo dalxiisiyo dalxiiska ugu qurux badan maanta meeshaan gelaysid waxay kamid waxaa ah waa inaad gaari qaadataa dadna meelahaas cafeteriada aad tagtaa ashyaa ka socota adiga qofka saaxiibka aad kusoo sheekaysateen waa dalxiiska ugu quruxda badan laakiin halkaas waxay lahaan jirtay mid ka duwankaas cimilo dhan oo dalxiiska ugu filan cimilo dhan oo dalxiiska ugu filan bay lahaan jirtaa inkastoo hadda meeshaan waxaa loo yaqaana hadda waqtiyada hadda gabar marka hadda xilliga roobka ku ammaantay meelaha lagu yaqaan waxa la yidhaha bad weather صح وحل حب كلها وبعد وين كلين قبلها ثمان عايو كلين صح هو حل مركز waa qaabka qiyaas ka haystaan mogta marka waa bad weather kuleeyin waxa ninkan uu noo soo bandhigay صح saas awgeed marka ayadu taas noloshaas quruxda badan bay ka soo hadlaysaa dhaqankaas markaas wanaagsan iyo cimiladaas aad u wanaagsan bal haddaan guda galno maansada waxa la gobha weyn lahaan jiray dagaalkooda meeshaas ka yimid dhaliil bad madaynay meeshaas ka weyn lahaan jiray ergaas guud markaan macnayno sidoo loo qoro gobha weyn lahaan jiray waxay ka turjumaysaa gabdhihii miyi ee waagi hore jiray gabdhihii hore gobanimadii gabdhihii hore lahaan jiray sax waxa mid in la ku jirto la leeyahay gabdhahan ma lahan gobanimadii ma ahano waxa la yiri Soomaaliya kuma magac iyo masiibo maalin bay baxaan sax maalin bay baxaan arrinta magac iyo masiibo dhaqan xumada hadda taan jirta gabdhaha dhan ma lahan laakiin qof iyo laba leh sax qofkii labadaas ba waxay ku effect ku soo bisay inay dadkii dhan wada taabato dumarkii dhan ay taabato sax dumarkii hore tana way isku wada qarsoonayeen tan xunta wanaagsan baa qarin jirtay sax markaas awgeed ba xogaa halkaas aan ishu jirtaa marka gobha weynanteeda waa wiil gabarta isjeclaaday sax soo sheekaysteen rabaan inay isguursadaan waqtiga gabagabadii guurkay marka ka hadlayaan qaabku la noolaan la gabadha soo u dhisan lahaa sidoo ula raaxaysan lahaa nolosha ula qaadan lahaa uu ka hadlayaan waxaan jeclaan lahaa maansadan in la wadaagno daawadayaasha ee dhammaan qalbo oo daawanayso gobha weyn la hajiray waxa yiri gobha weyn la hajiray rashan waa meesha uu moogtahay iyada laftirkeeda dadka moogtahay Soomaalida waxa fiican waa ugu qurux badan qofku inuu leeyahay background inuu leeyahay hadda ma ka dhigna hadaan dhaho gobha weyn lahaan jiray hadaan gabdhihii hore aan dhaho inaan amaano ayada ii banaanta inaan amaano gabdhihii hore kuwaana si gooniya la iga rabay inaan u amaano anoo kala qaadin baa marka waxaan rabaa background inaan gabdhahaana mooga dhigo gabdhihii hore oo iyaga laftirkooda ay ogsoonaadaan in gabdhihii hore tay gabdha wanaagsan ahaayeen horseed nolosha waa sax ay ahaayeen marka wuxuu yidhi gaada socodka laafiyaha gaada socod waxa la yaas qofka horta gaada socod waxa la yimaad qofka miisaan kale ee jir kale ee dhammaystiran ee hadana joog gale qofka markuu soconayo socod wuxuu soconayaa miisaan leh gacanta laafiyaha tilaabada uu qaadayo isku sibay u dhacayaan waa nolol aad u qurxoonayda fikirka qiyaas macna runtaha gaada socodka laafiyaha garaaraha isdaba mari markaad gacanta saydho galbisoon tilaabada ayuunbay gayaanka heelada la guuxaan marka ayuunbay gayaanka heelada la guuxan ana galabta erayada ku gariifi mahaye sharaf aad ku gaartahay eeba kugu galaday ba sharaf aad ku gaartahay eeba kugu galaday ayaa weedha keentay bal garawsa inaan yahay gobha weyn lahaan jiray garashada xishood kale gol joogsigaagaan ka arkaa gol dheero in dheer garashadaaduna waa waxa ay gubayeen uga go'ay geesiinka yaad gacal wadaagteen goday nabadu waa guri yaad gacal wadaagteen laga wada hadlaa magtay marka wuxuu leeyahay waxaan uga gol leeyahay goday nabadu waa guri iyo geed qabow oo lagu wada gam ahaya gaajadani haysana waa gaabsigayga oo wacadkan gunteeno ilaa sanad iyo gaarsii ay ahayd gadiisii ayaan caawa guri geyn anna garabka ila qaba iyo gacanta midigood yaan la soo galin ya sheekadeena soo sheekaysanayna inagu guursano guri bay maraysaa ilaw dadacooyin ka ilaan ya garabka ila qabo yaan la soo galin biir wuxuu yiri gacma daaris aan jira reer laguma gaaree yaa guri ku geysto aqal wada guduto habla gaariyaal iyo tidcayaan gashaantimo daahiyadu gamboon yihiin daarad aad u gudaweyn gaaf kuugu tumo oo dhalinyarada goomoon cagta garangarteeda iyo galbiskii ciyaaraha ayandayn orangoyn gacalayda ku wada hadalkaba kugu adkay waxaa ka turjumaysaa nolosha noocaasa gabadha uu rabo inuu guursado iyo qiyaaska uu rabo inuu ku guursado meeshuu
mudulku soo binayo waalidkaana yaa guda soddon geela daaqo baarqabkiisii golan galay markay gaadho leylkii doobida garaaco galowgiyo shimbiruhu midba gooni ula coyay gurigiina soo tumay geel soddon halaada gabar laga bixinaya balka warantay qiimo la wata marka wuxuu yiri gabar qiimo leh runtaas gurigiibu ka bixi guriga aad aragto quruxdaas laagi ciyaarta noocaas loo soo tumo gaaf waxa la yiraahdaa aqalka baadiyaha reer miyiga aroosku marka dhacaysa xafladda ka dhacda meeshaas ciyaar aad quruxda ciyaaraha lagu soo bandhiga hal xaraala ka jira un aad fara badan xajooyin fara badan ka dhaca meeshaas marka gaafkaas weeye marka gabadha inta guriga noocaas lagu guursaday haddana geelaas laga bixiyay ninkii aan aqoono xeerkeeda garanayn waa la si xun buu la dhaqmaa cabdul runtii salaam markaad bixinaysa inaan joogo camal ay ahayd taas waxaan mudaawi in halkii joogo ama aan ku haminayo runtii meelahaas kale aan ka dhac qofka garanayo dhan baa sidaas dhahay idna wuxuu yidhi markay gaadho galabtii gaabatoy cadceedina goonyaha daruuraha fallaaraha ganaysay ku cadaysay geesaha oo geela dhala iyo lo-du gaax la wada ciy garanuugta iyo cawl ay gaaf wareegaan gurigaaga aagiis yaa kaaga gees waca gabadhii wuu lahaya markay gaadho galabtii markaasoo kala dhafa meesha xoogaa maansada waxaad middaa waqti hore bay ugu dambeysay inaan tirinteedii marka wuxuu yidhi gabadhii wuu la hadlaya markay gaadho galabtii gabadhii wuu la hadlaya mogtay markay gaadho galabtii wuxuu yidhi markay gaadho galabtii gaabatay cadceedina goonyaha daruuraha fallaaraha ganaysa ku cadaysay geesaha oo geela dhala iyo lo-du gaax la wada ciy garanuugta iyo cawl ay gaaf wareegaan gurigaaga aagiis yaa kaaga gees waca yaa kaaga kaftanaan godood iyo keenaynin gacandhaaf yaa kaaga gogoldhiga yaa sheekadii hore oo aanan ku soo haasaawihii yaa igar ka gununocay iyo madida gaaxneed gaawaha u qaato kugu siiyo gobonimo jilaalkiina genyey geyigooda bannaan oo ceelku garab aroor yahay geesahaaga soo dhiga goosaarta reerkood garaadiya garoomaba waxaa geesi loo sii sidaad gaarka uga tahay hablaha isku garab yaalbi ciish calaa maanso runtii maansadaan waa maanso aad u qurux badan runtii islamarkaasina dad badan oo ku daawanaya ay aad ula dhici doonaan maansadaan runtii waa maanso aad u qurux badan laakiin bilowgii hore waxaa ku jiray erey markaas adag oo inta badan aan aaminsanaha dhalinyarada cusub oo markaasan daawanaysa inays fahmi karin waxaa kamid ahaa garaaraha ergaas garaaraha maxaa loola jeeda raggu waa yaqaanaan siday dumarka ku raadsadaan calaamooyinka ku raadsadaan sax waxaa la yidhaha qiyaas nafsi baa hadeertaan adigu haysataa dad gabadhaad guursan lahaa inay qiyaas noocaas lahaato baa haysataa adna garaaruhu waa xibinta horta garaar waxaa la yidhahdaa xibnaha meeshaan halkan gacanta xusulka la yidhaahdo ayuunbaa inta badan dumarku baa leh waa aad bay dumarka ugu qoranta raggu hadday leeyihin ku foolxuyi laakiin dumarkaa kuleh dadna gacantaan ba waxay leedahay si qurux badan ay halkaan uga dabcaysa dhankaan bay u laabantaa dhanka kale ay u laabato aysan u laamin ayuunbay gacanta u leexanaysaa dadna qofku marka gacantaas uu ku xaragoonahay garaarahani aad bay u qurux badantaa waa garaaro marka waa meel laabitiinkaas waa xibintaas aad garaaraha gabdhaha aad ugu qurxo laakiin ninka raggaa kuma qurxoon ku jiri griifin griifku erey aad markaas u culus inta badan dadka xanaaqa nolosha qofku inuu gareefaa waxaas uu ka gareefay hebel waxaas uu ka gareefay waxaas uu ka xanaaq uu ka biyadiidoo kale ka dhigan inaad ka gareeftay wuxuu waa ka biyadiidoo kale nolosha aadashan waxaas inaysan ku cuntamin waa diidma marka erey maasha allah dhantaan maansadan waa maansa dad badan aan filayo inay markaas la dhici doonaan isla markaasna aad uga faa'iidi doonaan intaad ku guda jirtay maansadan ciranteeda iyo saameynteeda caqabadii ugu weynaayo oo aad kala kulantay wax ma ka xasuusata inaad soo saarto maansadan u qurux badan oo kale maansooyinka horta farshaxan fara badan baa gala maansooyinka laakiin waxaan dhihi karaa un maansadan farshaxan igama gelin aniga habeen baan curiyey isla habeenkii bay dhammaatay baan qoray waliba sacda yar kooban 30 daqiiqo wax saas camal aan ku qoray ma iga gelin marka farshaxan nooca laakiin qiyaaska nafteedaad waxaad moodaa inay joogtay meelaha laga tilmaamo صح وحاجة صدق جرت مركز نفتي ذا بحمد ده إني تشوكتي جوابها أكاد عايزي بعش صح سأسوي ذكيني مركز أدي في أبو أنا ذا على أبو رياشة لا كمركز وسحب كهال أبوك أنت بدن حجود كريان إن صار ما يسوين أري مركز تذكر حلقة بدله وجود وين ولا صار إحنا وقت تذكر وحيس حاجة بين سبع سنين بنت وين اللي قال لي هاي يصابت الله صار قف كون سوق صار هرت قف بدن بكليه أسقو وجونيه نم بدن باكو كلفتين سوق صار رجع حبس صاران حكو كلفين تعيل لأنه هي سوسو بينها ما نسوسو بينها قبل يروح على السوق أنت حكو كلفتين صار سبب تعيل صح لأنه حكو كلفتين عليه قرب قبش كو قرب استاج وافك الصومالي كو قرب استاج هيل أهم
baa ku kaliftay horta anugu waxaan ku jiraa dadka anu sugaanta intaan sugaan marka koobaad oon ka aaminsanaanahayba waxay tahay iyo baaqaan u gudbinahay inay had iyo jeer horta shayga leeya qofku midnimada inuu muujiyo waayo anu markaan soomaali ahay shanta Soomaaliyeed ay qaybsantay labadii yarayda isu haynay anagu oo wadaan hada ku dhahay hadigtii qabyadahay nimba qowlad subsado waad arkaysaa qowladu waa xaradii nimba goob xaraysto marka inaad adigu dhihin horta reer hebelna ka tagtay reer hebel rabba ka dhigay sax ilaahay wuxuu yiri waxaan ka abuuray oo idinka dhignay shacab qabiilad baan idinka dhigay laakiin maxay tahay maamadu litacaarafu inaad isku garatay laakiin naguma doomarno qabiilka lama si amaano waxa la amaano le in akramakum indallahi atqaakum ba ilaahay dadka ugu fiican waa dadka ilaahay u dhow qofka haduu og yahay wuxuu asagu yahay midnimo uu gaaraya marka inta badan la waxa u baaqada in midnimada dadka Soomaalinimada inaad reer hebel tahay waata ilaahay ba ka dhigay inaad deegan hebel ka soo jeedin deegan hebel rabbi ba ka beeray labadaas adoo ah midnimada Soomaaliyeed ku muuqato taada waxaad ka doortaa mid dadweynaha Soomaaliyeed taasoo u baaqlaa Cabdil waa maasan tahay waqtigaada qaaliga aan soo galsay waan kaga mahad celinaa mar labaad iyo mar koowaad waxaan filayaa barnaamij dambe dib u kulmo doono hadii Ilaahay raali yiraahdo waa shukran mid lamid waa rajaynaa la sirkeeyo intaasi waxa nooga eg barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo noogu martay Cabdul Sheekh Isxaaq Yuusuf Cabdul Soomaali intaan dib u kulmo doono barnaamij noocan oo kala waa anigu Shaafici Nuur Yeelay waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo